wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka ee dalkaasi Jabuuti ayaa heshiis waxay la gashay shirkadda duulimadyada ee Ari Jabuuti. heshiiskaasi oo ku saabsan sidii shirkadda Ari Jabuuti u qaadi lahayd xujaajta reer Jabuuti ee sanadkan soo xajinaysa. Axmed Cabdikariin ayaa warkaasi ka soo diray Jabuuti. heshiiskan ay kala saxiixdeen shirkadda duulimaadyada Air Jabuuti iyo wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka waddanka Jabuuti ayaa ku saabsanaa sidii shirkadda Air Jabuuti ay u qaadin lahayd xujaajta reer Jabuuti ee sanadkan soo gudanaya waajibaadka xajka. heshiiskan labada dhinac ayaa waxaa kala saxiixday wasiirka arrimaha islaamka iyo dhaqanka Muumin Xasan Bare iyo madaxa shirkadda duulimaadyada ee Air Jabuuti Abubakar Umar Xadi. waxaana heshiiskan macnihiisu yahay in xujaajta reer Jabuuti ee sanadkan soo xajinaya ay shirkadda Air Jabuuti ku qaado qiimihii ugu hooseeyay oo ah $100 waana qiimo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo xujaajta sanadkan ugu talagalay sida uu sheegay wasiirka arrimaha islaamka iyo dhaqanka ee waddanka Jabuuti Muumin Xasan Bare. mahad ilaahay baas kale maanta waxaan u fadhinay waxa weeyeen waxaan halkan ku saxnay heshiis ka dhaxeeya wasaaradda arrimaha islaamka iyo dhaqanka iyo Air Jabuuti oo ku saabsan sidii loo qaadi lahaa xujaajta reer Jabuuti sanadkan ay u qaadi lahayd shirkadeennii sumadeela lahayd magaceena sidatay in badan sugaynay oo dib u soo noqotay Air Jabuuti oo maanta ku qaadaysa xujaajteena $100 cotton si socda iyo cotton soo socda. arrinta mahadeeda ilaahay kadib waxa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo dadaalkii waliba ugu jiray ummadda sidoo wax ugu fududeyn lahaa ugu dhibyeyn lahaa maantana mid kale oo aad iyo aad weyn ku daray oo yiri ummadda xujaajta reer Jabuuti waa in inta lagu qaado. waxaan leenahay mahadda ilaahay dibadda madaxweynaha ayaa iskale waxaan ka dalbaynaa ummadda reer Jabuuti dhamaanteed xujaajta reer Jabuuti gaar ahaan inay waddanka u duceeyaan inay madaxweynaha u duceeyaan inay dalka u duceeyaan inay xajka uga soo duceeyaan. wasaaradda aan madaxa ka ahay ee waqti dhawaan qabtaan horta inay soo duceeyaan mas'uuliyadda madaxweynuhu u eegmaday inuu ilaahay la qabto dadaal weyn baan galay kolka lagu daro diyaaradda maahina wax badan oo kalena ummadda waan ka khafiifinay. xajka maanta waxa lagu tagi doonaa sidee hore aad u maqasheen in badan ay diidaneed aan markayay 250,000 baa lagu tagi doonaa xajka maanta hadduu ilaahay dhaho. waxaan eebaweyne ka barayaynaa inuu ilaahay xaj la aqbalay ka dhigo amal suuban ka dhigo laakiin maanta haddii dadaal dheeraada dowladdeenu ay gashay ay u guntaday ay maanta wax aqliga gelin keentay dadku inay sideeda u qadariyaan ay u qiimeeyaan baan jecelahay. sanadada dambana dadaalka waan sii wadi doonaa insha allahu tacaala ilaahayna nala qaban waad mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. shirkadda Air Jabuuti oo lagula heshiiyey inay qaado xujaajta sanadkan soo xajinaysa ayaa sanado badan kadib duulimaadyadeeda caadiga ahayd dib u bilaabaysa. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Jabuuti.